wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Somaliland oo ku sugan magaalada London ee cariga waddanka Ingiriiska ayaa telefishinka caalamiga ah ee Ariel TV waxa ay siisay waraysi gaar ah. Saacadda wasiir Yurub Habib ku soo dhaw marka hore telefishinka Ariel waxaad naga warantaa socdaalkaaga aad ku timi waddanka Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim TV Ariel waan ku dhawahay waan salaamayaa isagii shaqaalihiisa adigaba runtii halkan waxaan joogaa iminka Ingiriiska socdaal baan ku imi Ingiriiska insha Allah waxaan rajaynayaa inaan hawlo badan iyo dad badan aan la kulmi doono haddii alla yiraahdo safar run ahaantii fasax baan ku imi laakiin wixii aan u arkay inay dalka iyo dadka ay dan ugu jirto waan isku dayaa inaan maxaa la yiraahdaa aan dadaal badan inaan geliyo inaan ka siiro gudba hawla shaqadana. Saacadda wasiir waxaan doonayaa ku weydiiyo dad badan baa waxay isku qabtaan madaxda Somaliland ma baasaboorka Somaliland bay ku dhoofaan mise baasaboorka kale oo ayagu sitaan meesha doonaan baa ka soo qaateen bal arrinta ka war horta waxa weeyaan sida ogtahay waddankeena Ilaahay baa ictiraafeed caalamka ictiraafka ma haysto laakiin imika intay dawladani jirtay dadaal badan waxa la geliyay baasaboorkeena lagu tago meel kaste sida ogtahay wafdigii madaxweynuhu hogaaminayay aad ogtay baa xad u lahaa baasaboorkii Somaliland bay xashka ku tageen oo lagu siiyay fiisaha oo diyaarad khaasana loo soo diray markii madaxweynaha Somaliland yidhi anigu waddankayga mid aan ahayn ma aaminsani ku mara dhoofiyo baasaboor kalena ma qaadanayo taasi guul badan ayay waddankeena u soo jiiday waana ictiraaf sidiisii adigu maxaad Ingiriiska ku timi anigu Ingiriiska waxaan ku yimi baasaboorkii Somaliland ee diblomaatkan sitaa asagana fiisa la igu dhuftay ayo baasaboorkii Somaliland fiisuna si ku saaray صورك waxa weeyaan waliba xitaa chance kale in fiisahana isaga la igu dhuftay isla markaana ay tahay inay taas ictiraaf ay tahay bacdamaaba baasaboorkii Somaliland fiisihii lagu dhuftay ay guul badan iyo farxad badan ay tahay inaan waddankayga baasaboorkiisa Ingiriiska ku soo galo iyadoo airportka markaan ka soo degayna aad la igu ixtiraamay fiisaha iyo baasaboorkayga run ahaantii immigration-ka aad iyo aad la igu ixtiraamay runtii waa arrin tallaabo aad iyo aad muhiim u ah oo guul ah dad badan baa arrintan tashuush geliya marka waxaan leeyahay arrintaasi ay cadayn ugu filan tahay maadaama wasiir ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland uu wasiir baasaboorkiisa diblomaasiga ah sito kuna soo galay waddanka Ingiriiska ugu dambeyntii ka waran munaasabadan adna aadan ee aad ka soo qayb gashay bismillaahi raxmaani raxiim horta munaasabadan adna aadan waa munaasabad aad iyo aad u heer sareysa waxaad arkaysaa London oo buugeedii taariikh nololeedkeedii iyo historygeedii iyo informationkii badnaa ee haysay lagu soo bandhigay oo la iibsanayo kuwii loogu jiro buugeedii waxaan leeyahay adni waxa weeyaan horta waa hormoodka dumarka Somaliland waa qof waxaan ku yiraahdaa aqoon badan leh oo experience oo waddanka awood badan gelisay oo taariikh badan oo inagu aynaan haynin haysa waxaan oran karaa waa best woman weeyaan adna aadan marka waxaan aad iyo aad baan u hambaleynayaa buugeeda iyo taariikhdeeda waana qof anigu aan ku dayday adna aadan oo aan rabo wax weeyaan dumarka Somaliland waxay u tahay ku dayasho fiican ayay u tahay adna aadan run ahaantii waan qof aan anigu aad uga daydo intii maxaad leedahay qaranka jamhuuriyadda Somaliland madaxweynihii iyo wafdi hogaaminaya safar bay ku maqan yihiin halkan jaaliyad baa joogta badan dalkii bal waran horta jaaliyadda Somaliland ee London ku sugan iyo Ingiriiska joogtay iyo qurbo joog reer Somaliland oo dhan salaam baan hawada u marinaya anigoo chance kan aad siisay ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay waddankiina sida waa dad run ahaantii waa dad aad iyo aad u dadaal badan oo waddanka dadaal badan geliyo qurbo joogeenu waxaana qayb libaax la ka qaateen in waddankeena la ictiraafo amba inuu dhaqaale helo amba inuu horumar helo amba inay keenaan dad badan oo ajahanaba sidaad ogtahay imanka carigan Ingiriiska oo kale 5 meelood mise 4 meelood ay gulaheeda deegaanka Somaliland ay aqoonsadeen waa dadaal ay geliyeen dadka qurbo joogii waxaan leeyahay hore u socda guuleystii maan leeyahay Somaliland horena way guuleysatay imankana way guuleysanaysaa loo baqan maayo qaranka Somaliland maanta wuxuu marayaa highway meel sare Yaasiin Faarax Jees telefishinka Ariel magaalada London.